لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، walaalayaal waxaynu dhexda uga soo jirnay ka sheekaysigii iyo isbaridii taariikhda rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam, moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdimunaaf. waxaanu ugu magac darnay baro rasuulkaaga. waxaa inoo soo dhammaaday horudhicii iyo xalaqadii koowaad ee bara rasuulkaaga oo habeenkii ugu dambeeyey aynu jeedinay, taasoo ka hadlaysay alcaalamu qabla alislaam. caawana waa xalaqadii labaad ee baro rasuulkaaga. waxaan filayaa waxay inoo maraysay rasuulkeenii suubanaa sala allahu calayhi wasalam oo inoo dhashay oo yimid caalamkii oo dhanna nuuriyey. waxaa inoogu soo dambeeyey xadiiskii rasuulka uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, uu ku yidhi ana dacwatu abi ibraahim wa bushraa ciisa wa ra'at ummii annahu yakhruju minha nuurun adaa'at minhu qusuur الshaam. hooyaday markay dhalaysay marka hore wuxuu yidhi waxaan ahay dacwadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam, dacwadiisii uu ilaahay bariyey, uu ilaahay ummaddan nebi maxamed, ummaddan khayru khalqi illaahi uu u bariyey, ilaahayna uga bariyey in uu yeelo rasuul iyaga ka mid ah. waa marka uu leeyahay nabiyullahi ibraahim, ilaahay markuu ka xikaayoonayo rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim. haddana wuxuu leeyahay waxaan ahay bishaaradii nabiyullaahi ciisa, dacwadii nabiyullaahi ibraahim iyo bishaaradii nabiyullaahi ciisa uu caalamka iyo ummadiisa uu ugu bishaareeyey inuu iman doono inan la yidhaahdo moxamed oo khaatimu ambiyaai ilaahay uu ka dhigi doono. waa marka uu leeyahay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed. hooyaday waxay aragtay buu yidhi nuur. waa markii aan dhalanayay, nuur baa ka soo baxay, nuurkaasoo ifiyey shaam, yani caalamkao dhan buu ifiyey. daarihii ku yaalay shaam ayay aragtay hooyaday, nuurkii baa tusay, caalamkii oo dhan baa nuur daday. ilaahay aayaddiisa waatan uu inoogu sheegayo oo uu leeyahay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin. wa subxaana allah, xagga alle waxaa idinkaga yimid ibnihii aadamow, nuur ayaa idinkaga yimid iyo kitaab cadcad, aayadihiisu ay cadcad yihiin oo wax cadaynaaya. taas ayay noo maraysay sidaan filayay. waxaynu maanta ka bilaabeynaa hadduu ilaahay idmo nebiga markii uu dhashay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. waxaanu niri wuxuu dhashay 12 maalin isniin ah, 12 rabiicu lawal caamulfiil. waa sanadii aynu ka soo sheekaynay.
mar allaaliyo markii adduunkan uu yimid oo uu dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii u horreeyey ee nuujiyey waxay ahayd hooyadii aamina bintu wahbin. aamina ayay ahayd, in yar ayay nuujisay, dabadeed waxay u dhiibtay thuwayba jaariyata abilahab, jaariyadii ama gabadhii u adeegeysay abaalahab rasuulka adeerkii ayaa nuujisay. mar alliyo markay nuujisay dabadeed waxaa lagu wareejiyey xaliimatu sacdiya, xaliima bint abi du'ayb, oo uu la soo joogi doono muddo 5 sano ah. laakiin qisadan yar ayaan rabaa inaan idin sheego sidii ay xaliima ku heshay moxamed ibn cabdillaahi. markii uu yimid wuxuu la yimid baraka ayuu la yimid, oo gudcur ah, adduunkiyo dulmi iyo jahli uu degay ayuu yimid nuurka wiilka agoonka ah. aabihiina wuxuu dhintay, aabihii maanu arag rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh, aabihii wuxuu dhintay rasuulka oo 2 bilood uurka hooyadii ku jira, waynu ka soo sheekaynay. dabadeed moxamed baraka ayuu la yimid caalamka, hooyadii baraka ayuu u ahaa, maka baraka ayuu u ahaa, caalamka oo dhan baraka ayuu u ahaa. xaliimatu sacdiya oo hooyadii labaadah oo nuujinaysa baraka ayuu u ahaa, sidaanu arki doono imika. carabtu waxay lahaan jireen caado ah in marka ay ubad dhalaan ay geeyaan baadiyaha si ilmihii halkaa loogu soo nuujiyo. maxaa wacay baadiyaha wuu ka caafimaad badan yahay, hawadiisuna way ka fiican tahay tan magaalada. sida maanta baadiyaha iyo magaalada ay u kala fiican yihiin ayaa waayadii horena sidaas oo kale u kala fiicneed. hadii jeerna baadiyaha carasana, baadiyaha hawadiisu wanaagsan tahay, baadiyaha caafimaadkiisu badan yahay. baadiyaha waxay u geyn jireen caafimaadka iyo inay nuugitaan caano nadiifa ay ilmahooda usoo helaan, ilmaha inay ugu soo xoogeystaan, ilmaha inay funuunta kala duwan ee ciyaaraha ay kusoo bartaan, fardafuulka, warmatuurka, dabaasha, xagga cilmiga luqadii fusxada ahayd ee hooyo inay kusoo bartaan baadiyaha. intaasoo dhanba way u geyn jireen, caragedis ahaanna way u geyn jireen. maxaa wacay baadiyaha sidaad ogsoontahiin dhulkiisu waa furan yahay, waa banaan, wax kusoo celinaya ma laha. waxaad arkaysaa halka cirka iyo dhulka ay maaragtaa ay iska qabtaan, waxaad arkaysaa halka qoraxda ay ka soo baxdayo halka ay u dhacayso. dhulku waa fidsan yahay, qofka halkaa ku barbaarana waxay u dhowdahay maskaxdiisu inay sidaas oo kale u fido, in uu noqdo in dheer garad, in uu noqdo nin xoog badan oo luqada yaqaana, geesi ah, caafimaad wanaagsan ayuu maaragtaa ilmihii ayuu sidaasu noqonayaa. caadadaa marka wanaagsan way lahaan jireen carabihii. sanadan baadiye u dhowaa maka oo la yiraahdo baadiya bani sacd ibn bakr ayaa waxaa ka dhacay abaar. roobkiibaa bilooyin la waayey. sanadkan roob ma di'in, dadkii waa abaaraystay, xoolihii waa le'deen, intoodii badneedna way daciifeen, waxay cunaan ayay waayeen, ilmahoodii waxay siiyaan baa la waayey, meel laga shaqaystiyo meel loo ciirsadaa la waayey. waxay sameeyeen, waxay ku tashadeen inay maka aadaan. waa dadkii deganaa baadiya bani sacd, inay maka aadaan, bal inay soo helaan ilmo ay nuujiyaan sanadan si ay abaarta uga baxaan. gabdho ayaa isa soo raacay, ay ku jirtay xaliimatu sacdiya, xaliima binta abi du'ayb. waa la soo baxay. xaliima xoolo ma ayan haysanin fara badan, xoolihii intii yaraa ay haysatayna aad bay u daciifeen. dameer aad u taag daran ayay soo qaadatay, cunug yar ayay nuujinaysay, habeenna wuu qabaa, habeenna wax yar ayuu maaragtaa ka helaa. gabdhihii kale ayaa ka soo hormaray, makay uga soo hormareen. xaliimo dameerkii baa la haray,
dameerkii baa soo dhaqaaqi waayey mar walba way u yeeraan xaliimoy waa ku sidee soo soco xaliimo siday u socotaa dameerkii baa dhaqaaqi la ninkeedii baa maka uga soo horeeyey taariikhda qaarna waxay leeyihiin way wada socdeen isagoo shaqadoon ah baadiyaha wax laga qabanayaa ma leh xooluhu meelay daaqaan ma leh dadku wuxuu cuno ma leh biyo iyo baadu way dhammaadeen isagana wuxuu watay hal neef geela oo dhadiga ayuu sitay magaalada ayuu yimid xaliimo waxay ka soo hartay haweenkii ay la socotay haweenkii baa maka uga soo hormaray giddigood waxay raadinayaan ubad yar yar ilma ay nuujiyaan oo aabbayaalkooda hani ah si ay u helaan lacagta ay ku nuujinayaan iyo hadiyadaha hadhow loo keeni doono xaliima mar dambe ayay timid iyadoo lagu kala kacay ilmihii oo dhan la qaatay haweenkii reer bani sacad baadiyaha ka yimid maka markay yimaadeen rasuulka way wada mareen dhammaantood aaminay waxay u tageen aamina bintu wahbin way u tageen mar walbo guriga loo garaaca wiil ma haysataan ubad aan idiin nuujino cunug yar ilmo yar ma leedihiin markaasay tiraahdaa moxamed baa ii jooga aabbo ma leeyahay aabihii wuu dhintay waa agoon see u galeena yaana siinaya mid walba waxay ka baqaysaa lacagtii ay ku nuujinaayeen in ay heli waayaan waxa iyaga keenay halkana waxa weyn waa baahida lacagta ay ku nuujinayaan way u baahan yihiin si ay abaarihii iyo wixii ay uga kabtaan qof walba wuu dhaafay agoon xaggeen geynaya aan aabba lahayn yaa hadhowna siinaya lacagtii waa la wada dhaafay moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimunaaf صلى الله عليه وسلم الله وخير خلق الله لكن قف أيان له ظاهرة يا كن نصيب صندونه ويلك فالحد حليم وصوت هذي إن إلهي خير إن أجرى لغيابا